mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya taliska guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceerro ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta taliska guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kormeerka ayaa ahaa mid uu madaxweynuhu ku kurgelayay habsami u socodka howlaha ciidanka qaranka madaxweynuhu intuu ku sugnaa xarunta taliska guud ee ciidanka qaranka waxa uu kulan la yeeshay taliyaha ciidanka qaranka Sareeye Guuto Nimcaan Yuusuf Gaaxnuug iyo saraakiisha sarsare ee ciidankaasi isagoo warbixin buuxda ka dhageystay xaaladda guud ee ciidanka qaranka baahiyahooda iyo qorshayaasha lagu horumarinayo waxaana madaxweynuhu sheegay in kulamada uu la yeelanayo ciidamada qaranku ay joogto noqon doonaan madaxweynaha oo la hadlayay saraakiisha kala duwan ee ciidanka qaranka waxa uu ku bogaadiyay howlaha culculus ee u hayaan dalka iyo sida ay markasta heeganka ugu yihiin difaaca dalkooda iyo dadkooda isagoo tilmaamay in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yihiin tiirka ugu weyn ee qarannimada iyo jiritaanka dawladnimada madaxweynuhu waxa uu cadeeyay in la sii xoojinayo tababarada iyo qalabaynta casriga ee ciidamada qaranka si loo ilaaliyo kalsoonida shacabka iyo waajibaadka dastuuriga ee ciidanku leeyahay dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in la bilaabi doono dhismaha guryo ay yeelan doonaan ciidanka qaranku arrintan oo ku jirtay ballanqaadyadii madaxweynaha xilligii ololaha doorashada sidoo kale madaxweynuhu waxa uu cadeeyay in dhawaan la dilacsiin doono saraakiisha ciidamada ee ay u gaadhay muddadii ay ku dalaci lahaayeen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar labaad idinku imaado taliska guud laakiin hadda wixii ka dambeeya kulamadeenu inta waa ka badanaya si joogtaa bay noqon doonaan haddii alla ka dhigo waxaan ku faraxsanahay wixii idin qabsoomay muddadii 8 bilood ahayd ee xukuumadda cusub jirtay waxaan idinku bogaadinayaa wixii aad qabateen sida howlaha ka baxsan ciidanka qaranka ee qaranku leeyahay ka qayb qaadateen ee abaaruhu ka mid yihiin waxaan bogaadinayaa saraakiisha soo noqotay ciidanka soo qaatay tababarada loo baahnaa ee aqoonta sare ah waxaan ciidanka ku wargelinayaa in taliyihii soo gudbiyey dhammaan ciidan weynaha wixii ay u gaadhay in darajo la siiyo oo la dalacsiiyo iyaguna dhaqsaan insha allahu u soo saari doona haddii alla yidhaahdo waxaan idinku bogaadinayaa dee ciidanka uu ballaadhay ciidamo la qarameeyey dugsiyo badan oo jirin baa la furay marka inaynu xaalad kasta uun u diyaar garowno ayaa muhiima xaaladda siyaasiga ee gobolku maalin walba waxbaa kusoo kordhaya Somaliland guud ahaan waa dal nabadeed oo ku caanbaxay ilaa 1990kii inay ka duwaneyd qaybaha kale Soomaalida oo dal madax bannaan oo arrimihiisa ka shaqaynaya oo ku suntan nabad iyo horumar horumarka la gaadhay ciidanku waa ka mid horumar ku sameeyey taa macnaheedu ma aha Somaliland isdifaaci mayso Somaliland waxay u diyaar tahay inay qarankeeda difaacdo difaaca koowaad ee la doonayo sida dastuurku qorayo gardarro kaga timaado dalka dibaddiisa ciidamada qaranka ka jawaabaya markaa saacad kasta taa diyaar baynu u ahaanaynaa haddii alla yidhaahdo inaguma jirto qorshaha horena uguma jirin Somaliland inay cid ku duusho laakiin waxaanu xasuusinaynaa cid kastoo isku dayda in Somaliland ku soo xadgudubto ama ku gafto ama ku gardarooto inaanu guryahooda ugu tegi doono haddii alla yidhaahdo waxaanu doonaynaa ciidankii in la casriyeeyo la tirakoobo oo tirakoobkii u dhammaaday in noloshooda wax laga bedelo qorshaha kale marka laga tago mushaahar kordhintii aan samaynay waxaa noogu jira qorshaha in guryo loo dhiso ciidanka sidaanu ballan qaadnay insha allahu waxaan rajaynaynaa
aanu gurihii ugu horreynina aanu bilowno haddii aan la yidhaahdo ciidanka sidaa uu taliyuhuna sheegay annaguna aanu qorshaynay waxaanu doonaynaa in caafimaadkiisana la hagaajiyo awooddu inoo saamixi mayso inaynu mar qura wax wada qabanno laakiin in ciidanku dhakhtar helo oo caafimaad helo waxay noo tahay mudnaanta koowaad baahiya ciidanku way badan yihiin sida baahiya kale qaranka laakiin waxay xukuumaddu diyaar u tahay anna anigoo madaxweyneha taliyihii ciidankaana diyaar u ahay inay ciidanku ii leeyihin mudnaanta koowaad haddii aan la yidhaahdo kulamo gaara ayaynu yeelan doonaa arrimaha qaarkood mar labaad waan salaamayaa ciidan weynaha meel kastay joogaan iyo qoysaskoodaba waxaana soo dhoweynayaa ciidanka cusub ee tababarka soo qaatay ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ceero waxa uu shahaadooyin guddoonsiiyey saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka oo tababaro kala duwan ku soo qaatay dalka dibaddiisa kormeerkan ayaa ahaa mid si cad u muujinaya sida madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudnaanta koowaad u siinayo dhismaha ciidan qaran oo casriya kaasoo awood buuxda u leh sugidda amniga iyo difaaca qaranka jamhuuriyadda somalilan cabdicasiis caydiid cilmi warbaahinta qaranka taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan hargeysa